بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحن سوير تشيدين يا كلمة ير وكسابسن اترك أثرا قبل الرحيل أدونك إنو قفكك كتغراد وآيو إلهي كل نفس ذائقة الموت نف ولبوي دمانيسا marka qofka muslimka waxa loo baahan yahay inuu noqdo naafican qof waxtar leh oo dalka iyo dadkaba anfaca oo runtii markuu dhinto oo adduunka ka tago lagu sii xasuusto oo la yiraahdo hada al-athar raadkan hebel baa ka tagay waayo nabigeenu kaleey salaatu wassalaam wuxuu walaalayaal khayru naasi anfa'uhum linaas dadka waxa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan qofka dadka anfaca wax wanaagsan ku anfaca wax uu qofku ku liibaanay ku anfaca tala ku anfaca wax tar ku anfaca aqoon ku anfaca dhiirigelin iyo wanaag kale ku anfaca waa inuu qofku noqdo qof dalka iyo dadkaba wax tar kaga taga markuu dhinto waayo dad fara badan oo adduunkan ka tagay ayaa runtii aynu dhageysano oo aynu maqalnaa waanooyin iyo talooyin ay ka tageen ama waxtar adduunyo ay ka tageen oo la yiraahdo hebel baa waxa ka tagay hebel baa waxa sameeyay qaarna way dhinteen oo adduunkan way ka dhaadhaceen runtii wax allaala waxay ka tageen iyo wax anfac adduunkan kaga tageenna ma jiraan oo waxba kameetay nabigeenu kaleey salaatu wassalaam wuxuu waa habbu naasi ila allah dadka waxa xagga ilaahay lagu jecel yahay qofka anfacahum linaas qofka dadka anfaca ayaa xagga ilaahay lagu jeceliyo dadka marka waa inaad noqoto qof wax tar leh oo dadka runtii wax fara badan ku tara wama maata qawmun dad fara badan baa adduunkan ka tagay oo ka dhaadhacay laakiin raad iyo karaamo kaga tagay oo ilaa hadda la sii xuso oo laga sii sheekeeyo dadna way ka tageen adduunkan wahum fi naasi ghayru ahya iyagoo dadka dhexdooda aan wax raada ku lahayn ka dhaadhaceen sida awgeed waxaan leenahay oo dadka kula talinaynaa in dalka iyo dadka dhexdooda raad lagaga tago madrasadaada raad kaga tag iskuulkaaga raad kaga tag shaqadaada raad kaga tag dadka la shaqeynaysa dhexdooda raad kaga tag dalkaaga raad kaga tag waa inaad raad wanaagsan oo lagu ku anfaca oo dalka anfacaad ka tagtaa ilaahayna xaqay nagu sugo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh wa billaahi tawfiiq.